بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكم وحن وهذه دونا الشورى في الإسلام in badan waxaynu ka wada hadalnay islaamkuna aada ugu celceliyo wada tashiga iyo qiimaha uu leeyahay waxaad moodaa isbedbedelka ummadaha waxaa daa'iman laga eegaa horumarkooda iyo qaabka ay u shaqaynayaan qaabkay u wada tashadaan haddii wada tashigu yaraado waxaa yaraada haleelka ay haleelayaan mar walba talada ay doonayaan hadduu wada tashigu batana waxaa daa'iman bata in go-aanada ay qaadanayaan iyo halka ay u guurayaan iyo talooyinka ay ummadda u soo jeedinayaan inta badan ay sawaabka u dhowaato وهو مبدأ أساسي من مبادئ الحكم الإسلامي تيرارك وجوا وين حكم كإسلام كل سنة هنا وحكم ذا وضتشي سبحان الله قفك مسلم كي واحر حتى النبي قال لي أنا هاي برينا وقال ادعوني أستجب لكم ولله بري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلهي محمد وحبك مدة تاجني وصحابي أعرابي ومسكين ومي كيمي أي النبي عليه الصلاة والسلام أقيمي إلهي واضيقانك عابدية وحبب محمد كما أقدم تاجني ولا يرجعوا في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كمور بصل لا تضروني كما أضرت النسالة على عيسى بن مريم war aniga kor hay dhaafinina inta ilaahay siiyay wax ka weyn sidii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ay ummadiisii ilaahnimo u gaarsiiyeen buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam rasuulku wuxuu ahaa afdalu makhluuq fi hada alwujuud ilaahay jiraalkan abuur uu dhiga ka ugu fadli badan buu ahaa wuxuu lahaa kaadhadh in badan aynu ka warannay oo ilaahay keligii isaga siiyey wahada maa yusamaa almucjisaat arrimuhu markay adkaadaan in badan waxaynu tilmaanay rasuulku inuu la soo bixi jiray kaadhadh cid isticmaali karta aanay jirin oo maa yusamaa khawaariqu lcaada bani aadamka caqligiisu aanu sawiri karin مع كونه هذا إله أود سيسي النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان واحدا من بين أصحابه وهو حامد آن كدح صحنين صحابة ديسا ومركا ونسو إسلامو وهلكا كسو قالو يسوغو النبي قدوني وحورن شري أيكم محمد dharka qurux badan muu xidhnayn muu haynin simadiisa iyo qaabka uu u nool yahay ay ka soocan tahay rasuulka calayhi salaatu wassalaam marka qofka raadinaya wuxuu odhan jiray kiineebaa nebi muxameda si aan wax u weydiiyey buu odhan jiray calayhi salaatu wassalaam waxaan uga jeedaa kama warrami karno gaaladii baa ka yaabtay nebiga calayhi salaatu wassalaam tobanka jimcee soo socda gaaladu intay rasuulka ka tidhi haddaynu isnidhaahno ka hadlo oo keliya iskadaa muslimiinta yacni ma dhammayn karayn saacaatan wa saacaat
124 kun oo saxaabi buu nebigu la hadlay fii xajati lwadaac saxaabi walba waxaa la yidhi ka waran nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi walba wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam anuu keligay jecel yahay bal insaanka sifadiisu caynkaa ahayd sawir adugu saxaabi walba khad yar buu ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan u aaminsanaa keligii inuu ka jecel yahay saxaabada kale oo dhan ee saxaabi walba aaminsana وهذا من مواصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وأشجع الناس وكان جوادا وأجود الناس وكان حليما وأحلم الناس هذو قيسي تشيرو ركبوه قيسي سنة هذي عقل تشيرو ركبوه عقل بدنا هذي قرشة تشيرتو بني آدم بوغو قرشة بدنا هذي أرورني تشيرتو bani aadam buu ugu ororin badnaa haddii hogaamini jirtana bani aadam buu ugu hogaamin wanaagsanaa nebigu calayhi salaatu wassalaam maca kownihi haada isagoo sidaa ahaa taariikhda laguma hayo bal hay sheega ninka ku haya kitaabka laguma hayo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wassalaam laguma hayo arrin aan waxyi ku soo degin oo aanu muslimiinta kala tashan go-aanuu qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aanu dadka khusaysa iyo cidda ay khusayso aanu kala tashan oo uu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhda laguma hayo ومن مواصفاته كما قال الإمام أحمد في كتابه من سند لا بأس به لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما أبو بكر يا عمر ولبدي سي السحابي وقوة وينا كمدو ويالي لو اجتمعتما هذا لبدي نقوان قادتان أنيك قوان كيواي قديه ولبدي سي وسير وقوة وينا وقوة قون تبضلا rasuulka marka ay garan waayaan oran jiray waa lagu jabayaa ka joog nabi allow cabdillaahi bin ubay bin salool oo ra'sul munaafiqiin ahaa ayaa waxaa u yimid inankiisii oo uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi yaa rasuulallah aabbahay waad garanaysaa waa ku necab yahay waa dhib badan yahay laakiin waan jecelahay aabbahay waxaan doonayaa inaad ku tukato waa dhintay aabbahay waxaan doonayaa labada go' ee lagu kanfayo inaad ka soo saarto go-yaashaada oo lagu kanfo si ilaahay ugu dembi dhaafo waxaan doonayaa inaad u ducayso nebi allow oo aad janaasadiisa timaaddo ayuu saxaabigaasi ku yidhi cabdillaahi bin ubay bin salool wahuwa min kibaari saxaabati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa saxaabadii dhifta ahayd ee nebigu jeclaa aabihiina waa dadkii la dagaalamayey nebiga calayhi salaatu wassalaam rasuulku intaba waan yeelay buu yidhi yaa heli karayay go' rasuulku leeyahay ushiisa nebiga waa la kala dhexli jiray kaatunkiisa amiirada muslimiintii waa kala dhexli jireen yaa heli kara go' dhan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay yaase nasiibka intaa leeg helay isagoo qiimeynaya cabdillaahi bin ubay bin salool rasuulku waa bixiyey qamiiskii lagu kanfay cumar bin khataab wuxuu yidhi yaa rasuul allah ha ku tukanin yaa rasuul allah ha ku tukanin ilaa la sii socday qabrigii waa ag socday yaa rasuul allah ha ku tukanin yaa rasuul allah ha ku tukanin marka uu kelmad yidhaahdaba wuxuu sheegayaa arrin dhabarka uu kaga jabiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu rasuulka xusuusinaya walaa tusalli calaa axadi minhum maat walaa taqum calaa qabri mar allaaliya markuu rasuulku ku tukaday
ayaa ilaahay aadan ku soo dejiyey munaafiq aad garanayso oo islaamka jabiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maat ha ku tukanin baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa taqum calaa qabri qabrigiisana ha isdul taagin markii la aasay baa cabdillaahi binu cabdillaahi isagoo aayaddaasi ku soo degtay ayuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yaa rasuul allah u ducee cumar binu khadaab baa yidhi nebi allow ha u ducayni waxaan ku yihi ha ku tukanin waxaan ku leeyahy nebi allow ha u ducaynin ninkaasi si aan ilaahay ugu dembi dhaafin waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa la hadlay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allahu lahum ama ilaahay u dembi dhaaf weydii ama ilaahay ha u dembi dhaaf weydiinin in tastakfir lahum 70 maratan 70 goor haddaad ilaahay u dembi dhaaf weydiiso lan yakfir allahu lahum ilaahay u dembi dhaafi maayo waxaan uga socdaa saxaabadu rasuulka waxay laayeen ka daaya rasuul allah abubakar iyo cumar waxay khalad u arkayaan umay aamusi jirin sida kuwa maanta muslimiinta u taliya ee ay ku yidhaahdaan waanu xalay baanu kugu riyoonay ay ku yidhaahdaan ka daabay odhan jireen waa lagu jabayaa waxaan doonaya in yaroo kooban anigoon badinayn inaynu xukuumadda la talino war go-aanada qaadanaysaan taladeeda badsada war waxaa dadkiina khuseeya go-aamadooda war taladooda badsada waxaanu sidaa idin leenahay horaa loogu jabay cidaan dadkooda la tashan iyo dadka ay khusayso arrimahooda haddaad la tashan weydo talada ayaa ku idaaranaysa taasina mustaqbalka waxa ay keenaysaa وهذا ما يسمى الانفلات أو التفكك الاجتماعي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم هذا واحد أدونها يصبح الصوت رسولك عليه الصلاة والسلام ما ألفت بين قلوبهم السماء أود ما ظهين هذا سكة الصحابة ولكن الله ألف بين قلوبهم إلهي بايسكوكا كيني وهو قامنت ونكسن آنكو أمرني آتكو صعته أيضتك كؤر بسيبال قول النبي عليه الصلاة والسلام وما حي وضع التشي ولكن لي يعني وضع التشي بضيع الشورى علماء والسير وكوبا وحي لاهدين استنباض المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد المرء فيها بين فعلها وتركها وإن وقفك تلاذك قاطو إذا نستقع حين وحيد باتك تماذا أما مشكلة كوي مادة تاسنا وحا أي كمتاي أرماها آنو كسود النصوص صريح iyada wixii kitaabka ku sugan ee kitaabka hal raacay wixii axaadiista ku sugan thaabita hal raacay oo arrimaha qaar kood dadka in hawada laga xukumo xaga sharciga shay banaan iyo meel Allah leeyahay ku taala ma jirto islaamku cadaaladu sugay hatta waxa la qabsaday nabiga kaleey salaatu wassalaam sajka bartankiisa lagu qabsaday rasuulku waa garbaxayo ninkii muslimka ee caraabiga ee masaajidka bartankiisa ku qabsaday saxaabadiina wuxuu ku yiri saxaabigii kaca ee u yimaadee doona inuu qabto ninka caraabiga ah war iska daayay ninkana waa gar sheeganaya ayuu lahaa rasuulku kaleey salaatu wassalaam oo gartiisa dhageysta islaamku quraanka maxaa ku sugan shaydaan oo ilaahay la garamaya ayaa quraanka ku sugan
ويلي إلهي وسجودي مايو إلهي وأمركاك قاضا مايو أي قرآنك كسوة وإنت صغور إلهي قرآنك كسوة علي محا إلهي وقسار واي كتابك قرآنك سوى أود أدكتها ما بين الكاف والنون كنبا إلهي وحكو أبورا أود أدكتها إلهي ليهي سفوينك وليهي أدكتها والشيطان وقرأ قرآنك أي إلهي وحلدوني بني آدم كإن لباره عدالة وحيطة وأينك بوقرة ku qora intii isaga lagaga soo horjeeday qori kara waaki balaag cid Allah in Allah liinta wax qorta intuu ku wanaagsan yahay inta ugu haboon buugiisa ku qoray kitaabka quraanka ku taal shaydaan oo goodiyay oo wuxuu doonay yeelaya ilaahay wuxuu ilooga dhigay aayad aynu akhrino ila yawm al-qiyam wa hurriyada wa adaalada quraanka ku sugan ee dadka muslimiinta aanay fahmin way ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أرمها تلذا لو قاضني وحاكم إذا يعدد كلا تشني علماء وحي لاهدين وضع تشذوا لكن قفك وين يهي قف عقل جيسو لما يسترين يهي إسلام مركاسي وحا خبرت أوله هذا ندون إنه مساجد ما أنت تير كاسي خطو ما أنت بلر كاسي نقد الله دي هذا الكتاب لو باري ماي وذلك يقول مسكين كي هالكم فرديان وحبل لقوي دين ما ياد أما مساجد بسول كان كهذا أما بقرا يا هذا ريا إنه إنجنير كي بلر يسكوي بنورين ما هكي فينيشين كديو سبحان الله كي آرتش كهاي يسوي ديزاينر كهاني وحبل كوي دين مين وريا وجوه نفسه دقيستا محوها هاي تيرركا إنجنير كده هلاين نطولوا نورنا سبحان الله أي نوح كوي دين علادة تمده شروط وحكم ذا وإن قفكاسي وحاسي وأقول أوليه ولبا أقول خبرة له ما هو صابر تيون مركلي خبرة له وإن أوليه هاي مركز وحكوي دينيس وإن أوليه وإن هاي قف دين له دينتو هذا روح وعتقل ما هي نفهم ما هي نقر لبحي ما هي قميص عد بالول بحريه ما هذا وين هي قف دقن توصل لوي أتدرون من أفضل الناس ما تقارن كذتك وفضل قبضل كل مخموم القلب صدوق اللسان وقفل مسلم ولا بتيس صافي تاي صدوق اللسان عرب كيس ودبيهي هذا هو أفضل الناس مركا اللي هي قف دين له يعني ودق النبي ورسولك عليه الصلاة والسلام وين يهي قف كون صحيحين سبحان الله يمكن يلا لا تشلا يا تروفطورا يا هذا البدن يا سبحان الله يا وحكى السيحين يقولون الهبل يدور سبحان الله أن يكون ناسحا وإنه يهي قف كوضا مقنية مركز أرنتها كلا تشنس ودودا جعلنا تقوليسته ناصحا ودودا أرنتها أتكلا تشنيسه واكو جعليو إنا تقوليسته جعليها وإنه قف نوع عاسية أيها رسولك علي أيها لمقرأتي أي مدي ونكسنا أيها هذين عفوا وإنه يهي قف أنا دبات هيسن من حالي إسلامتي كوم وشيء سبحان الله أم بيستين لسوتوس يا وإسلامتي اللي يلي وحوي أنت سود دواء وباهنتها سبحان الله ده دبات هيسته وإنه يهي قف لكن دبات أنا هيسن أي علوم دي له قف قاعدة تشانيسه تنشن كيسو وقف الصوت شيء ده waxaan kula fahmay oo kula dareemay oo aan dhibaato ku xirnayn ay culimadu yiraahdeen arinta aad kala tashanayso waa inaanay maslaxadii ugu jirin haddii arinta maslaxadii ugu jirto
dee maxaad kalaba tashan isagii baa maslaxad raadinaya oo waxa maanta dunida ka jira marka waxa weeye qofka aada la tashanaysaa waa inaanu maslaxad ku lahayn arrintaad kala tashanayso hadduu maslaxad ku leeyahay dee dhinaca kale uu dhigaya subxaana allah والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إلهي وحلي مؤمنين توحوي وكو صلاة أوغا لما أورن كو صلاة تكذا صلاة أوغا معنيه دوحوي وقت جيدة تكذا شمع على اللتكذا وي وأمرهم شورى بينهم تلذوذنا أي تهي وضتش مؤمنين توقواس مؤمنين وحوي صلاة دي مركي اللي يمد وحلا وكو وضتشلا هذا ركت قارن وضتشلين إيمان كودو وانا وعيهي وأرن كودو مهجك سنوي معنيه ومما رزقناهم ينفقون وحال نصيننا وكو يجو إسكارسية أيا ويلي الله سبحانه وتعالى وعرنتي حسد مضن رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك الإمام البخاري أوري وحديث أيتهاي مدحوينه إنه آدياد أدقيست أيتهاي حديثك البخاري باوري ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بضانتان إلهي النبي ما صار قفنا إلهي ما خليفه madaxnimada ilaahay baad bixiya loo cudoonaha ahaad yani qadar ilaahay buu qofkaasi ku yimaada inkastoo dadku sabab ay u yihiin oo sababta dadku ay leeyihiin laakiin haddana qadar ilaahay buu ku yimaada ilaa kaanat lahu bidaanatan laakiin ilaahay wuxuu sameeyaa laba saaxiib hoosaad bidaanatan ta'muruhu bilmacruuf saaxiib hoosaad wuxuu aad iyo aad ugula taliyaa marka ilaahay dee waafajinayo wixii wanaagsan wataxuduhu calayhi war sidaa yeel war sidaa ha yeeli war sidaa yeel war haddaad sidaa yeesho waa lagu jabaya wabidaanatan ta'muruhu bishar saaxiib hoosaadna haddaanad qoor jajarin 10 kalaa soo kici doono haddaanad karkaarka weydaarin dhibaato kalaa kugu iman doonta شرون بيك شيكي سبحان الله أرنبا أرنك وكونك سي حل بحلك وكونك سي أمت المامان والمعصوم من عصمه الله كمعصوم كنا وكيله سبحانه وتعالى إلى لي مركا وحويه مركا أدعيت دورنا يسوع وإن أدورتا ضد أقول أولى أو توصل oo arrinka aad kala tashato oo waliba ku dhiiran arrinkooda oo sidii cali bin abi talib odhanaya war ma waxaad doonaysaa inaanu kuu fatwoono sidaad jeceshahay mise waxaanu kuu fatwoonaa sidaad ilaahay kaga nabadgelayso cumar bin khataab radiyallahu canhu ku odhanayay inuu sidaa yeelo xadiiska alimaam an-nisaa'i iyo al-bayhaqi fi sunan al-kubra ya tabarani fi al-awsad an al-qasim man waliya minkum amalan qofka idin kamida ee tala loo dhiiba faaraada allahu bihi khayran ilaahay khayr la doona jacala lahu wasiiran saalixan ilaahay wuxuu sameeyaa wasiir wanaagsan in nasiya dakarahu hadduu iloobo waa xusuusinaya hornaya waad arrinkaas sidaas u aha wa in dakarahu hadduu xusuustana أعانه وكالمين يا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم ودنك وحبا قورقوري حكومة وحنو شيء ور أرمها تدكا خصية ورادو قفيرس وركوا أكتشوغنا وحنو لنا ورتلذا ونرسل كل تلية مدحوينه وحيد ضلكاغا تدكاغا هنتدو ذا يغا خصية وهي مسؤولية قفك إسقى كمسؤولة قفك مسلم كمال كيسة هنتديسة عرض كيسة إسقى كمسؤولة قفك مسؤولية قاضي مدام مسؤولية هذه أي تهي أرنكست أوي ماذا وإن العقل يحكمد
iyo mulaabasaadkiisa la eego go-aanada marka aad qaadanaysana si aanay khalkhal u keenin aada u haleesho waa ina taladiisa badsato subxaan allah meelay ku taalla ma jirto xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam kamay sugnaanin qof muslima oo go-aan la siiyo oo aan la dhegaysan oo allahuma salli calaa sayidina maxamedin oo aan gartiisa waxay tahay aan la eegin oo markaasi dadkaasi wixii ay dhigteen aan lagu eegin gaal iyo islaam cidduu doonaad nin yahuudiya halkaa ka soo galo rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ku yidhi yaa rasuul allah waa kaa saxaabigaagii uu ku ag fadhiya xoog buu igaga haystaa buu yidhi war miyay jirtaa hayo way jirtaa yaa rasuulallah 4 dirham weeyaan buu yidhi markaas rasuulku wuxuu yidhi war istaagoo bixi 4 dirham oradoo bixi buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday jirto laakiin saxaabiguuba wuxuu weydiiyey war dadka hala dhegaysto ma dhici karayso haddaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi qiran oo aanu odhan yaa rasuulallah deyntaa waa laygu leeyahay oo way jirtaa aanu odhan rasuulku muu xukumeen calayhi salaatu wasalaam islaamku waayo cumar binu khadaab bay saxaabi isqabteenoo war maxkamadda tegi maayo buu yidhi meeshaad adigu magacaabatay baan adigoo meesha haysto anigu taga ma tegayo buu yidhi dadku xor bay ahaayeen saxaabadu maxaad walaal ku qanacsantahay waayo waa ubaya binu kacab waa sayidulqur'aan waa boqolkii saxaabiye nebigu ugu jeclaa ayuu ku jiraa masaajkay igu dhantay sayid binu saabit saxaabigaasi ansaariga ay noo wada gey buu yidhi isaga igu dhantay buu yidhi cumar binu khadaabe inoo gey marka masaajkii bay tegeeno cumar binu khadaab markuu halka ka soo galay ayuu yidhi haa huna yaa amiira almu'miniin cumar binu khadaab baa yidhi mar dambe aniga magaxa igu sheegi halkaa fadhiiso mar dambe hay odhan adigoo amiir almu'miniin kuu diiday وميانا ذركين نكاي هايستا بيقول سيد القرآن هل كيبا ورهن لبدو دي ويا دي أشكتوني ورهمي أمير المؤمنين كيقول يسوي نكان كلا صار لبدو دبوا لبس صحابي لكن هو التابعي سبوا سبحان الله عمر بن الخطاب يقول دارون باتكوبا مباحثة ميا لورني وأمير المؤمنين كي الله دارين ومسلمين تordن maalintaasi isaga ugu fadli badan laana Abu Bakar muu noolay haddana halkii baa lagu dhaariyay waa iskacan qaadeen halkii baa lagu kala tagay qof muslima oo la eedayn karo oo aan wax la weydiinin la xukumi karo ama bajir marka barakallahu fiikum waxaan leenahay xukuumadda kula talinayna war dadka isku haya war dadka dhageysta war dadka idinka ka mas'uula war dadka si wanaagsan u wada war sidii la iskugu hayo hal idinku yimaado baa leen ama dadka ugu yaryar ha noqdaan ama kuwa ugu waaweyn ha noqdaan in dadka la isku hayaa waa guusha ummadda weey barakallahu fiikum alladhi ya'rifu bil ishara uma baahna inaan far waaweyn ku qoray ila tahay arrimaha aan ka hadlay barakallahu fiikum بارك الله فيكم ووجيدين مالمها وحينو إن كي حافظك ها إن أنت الشركة للي إن أنت هسي طلول كي تنبيد دبور كأيان الهاي بينو نري إلهي عاف ما ضسي إن بدل ما ندي شيء بساتشت كان هذا ردت كتشلع سب لوجا أدينا تتقبل من أيان لوجا كركارم مساجد waana ta lagu guuleysanayo way marka waxa weeye waxaynu halkan ugu ducaynaynaa baar axmed maxamed oo loo yaqaano baar wayab inantaasi waa qolooyinkii bixiyay madrasadan waqfiga ah madrasadan daarul qur'aanna waa dadkii bixiyay waxay soo dirtay $600 إلهي دم بجود هرداف طريقة جنة إلهي هو فضيليو قبرك روضة من رياض الجنة إلهي هو بديو إنك الله يقان عبد محمد جامع إنجليز كبقول $1 بكسر ديري إلهي دم بيجي صار داف طريقة جنة إلهي هو فضيليو
inanta loo yaqaano faacilatul khayr waa inan hablihii masaajidkan agagaarkeeda ku noolaa ahaa iyada iyo hooyadeed $700 bay soo direen ilaahay dembigooda ha dhaaf dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo muraadkooda oo khayr qaba ilaahay ha siiyo inanta la yidhaahdo shun xirsi geelle waxa ay bixisay $200 ilaahay dembigeeda ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo inantaasi waa inantii bixisay dhulkii masaajidka ee 150 ku yaalay ilaahay dariiqa jannada ha u fudaydiyo caadil cabdi faarax joome iyo saami iyaguna waxay bixiyeen lacag $500 ilaahay dembigooda ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo qabriga rawdan min riyaadil janna ilaahay ha uga dhigo waxaa kaloo aynu u ducaynaynaa nin dhallinyara oo khayr badan oo dhallinyaradeennan ganacsatada ah oo isaguna $500 bixiyey oo yidhi magacayga ha la qariyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo qabriga rawdan min riyaadil janna ilaahay ha uga dhigo baaraka allahu fiikum war markii arrin noocaas yimaado dee adeer inaan xaafido dhowr iyo 20 jira oo qur'aankii wada haya oo $150 ilaa $200 carruurtiisa ku ilaaliyo dadka qur'aanka bara sidee arrinkiisu noqonaya ee la yidhi hargeysa waxba lagagaba qaban karo inanta waxaan welfareka loo yaqaano yaa sameeyey islaamka 1440 sannadood ka hor buu islaamku qofku markuu dhashay mushahaar u qoray sababtuna waxay ahayd nidaamka sakadee 2.5% ah ayay muslimiintu hirgeliyeen waa kanaynu ka hadlaynay marka warinteenna masaajidku markuu qof dhibaato ku timaado $10 ha doono qofku kii aan awoodeyni qof kale ha ku taxriidiyo inuu toban keeno iminka lacagtan aynu ka sheekaynayno lacagtii noo dhadhowda laakiin intaba dadkeena khudbadda dhegaystee yurub iyo maraykan joogay iyo dee carabaha ayaa lacagta soo dira weliba toos ulama hadalne waa khudbadda markay dhegaystaan ayay igu soo diraan oo dhanno culayskaa ku badan oo culays badan ma saarno nabadgelyada ilaahay ha noo adkay danteena ilaahay hayna garansiiyo cadaaladda ilaahay ha noo